runtii sharaf weyn bay aniga ii tahay caawa inaan arko oo runtii ay ka mid yihiin 7,000 oo qof oo runtii loo codeeyay oo la xulayay in 5 qof laga soo xulo runtii oo qiimo leh oo runtii qaranka u shaqeeyay waqti badan geliyay bishii October ayay yimaadeen xafiiska igu yimaadeen koox ka socota accountability lab oo runtii kaashanaysa isirtin tag oo ah urur loo kala markii aragtida ay sheegeen runtii aad baan u soo dhaweeyeen ula dhacay waana ujeedooyinka ugu waaweyn ee hay'adda shaqaaluhu ay u taagan tahay ee u dhisan tahay in shaqaalaha horumarkooda laga shaqeeyo tababaradooda runtii waqti badan la geliyo dhiirigelintooda iyo ka warhayntooda runtii waqti badan la geliyo sanadkan January laga soo bilaabo ilaa maanta aynu joogno wasaaradaha dawladda 60% in ka mid waxay xuseen oo runtii ay abaal mariyeen shaqaale weynahooga hay'adaha runtii dawligiina 90% in ka mid waxay xuseen oo ay abaal mariyeen shaqaalahooga taasi oo runtii ahayd mabaadiidii iyo ujeedooyinkii aan xoogga saaraynay markaa in shaqaalaha markasta runtii laga warhayo tacab badan la geliyo la dhiirigeliyo la garab taagnaado marka arrintan waxay ka mid tahay runtii dadaaladaasi xukuumaddu wado oo aad ugu faraxsanahay wasiir Mustafa oo ah wasiirka gudoomiyaha noogu ah dib u habeynta shaqaalaha qaranka inuu isaguna madasha joogo oo runtii ay ka mid tahay dib u habeynta shaqaalaha qaranku waxyaabaha xoogga la saarayo in shaqaalihii dib loogu noqdo oo aad runtii loo tayeeyo marka waxyaabaha reformka ka imanaya waxa ka mid ah in grade-ka ama darajooyinka ay lacagaha ku qaataan runtii xoog loo kordhiyo oo miisaaniyaddeena way idinka arkay qiimaha yani kharashka ugu badan ee ku baxay inuu yahay mushaharaadka in marka darajooyinkii runtii kor loo dalaco si dhaqaalaha u kordhaan maxay ahayd shaqaale weynuhu laba waxa kale iyadana ku faraxsanayn agaasimi maxadka tababarka shaqaaluhu inala joogo oo runtii shaqaale fara badan oo wasaaradaha iyo hay'adaha ka shaqeeya ay ka baxeen maxadka oo waqti badan la geliyay oo heer jaamacadeed ay gaadheen taasina ay keentay marka in darajadoodu runtii ay kor u kacdo markay heleen aqoon iyo waay aragnimo runtii ku filan 10 sano ama 15 sano ka hor hadda dib u noqoto dadku meelaha ay jeclaysan lahaayeen inay u shaqeeyaan waxay ahaayeen hay'adaha iyo private sector-ka laakiin imika cagsiga bay noqotay boqolkiiba boqol dadku waxay xiiseynayaan inay dawladda u shaqeeyaan marka su'aal baa la isweydiinaya maxay isbedelay dhaqaalihii baa isbedelay waxa isbedelay goobaha ay ka shaqeynayeen waxa isbedelay ka warhaynta shaqaalaha waxa isbedelay in ay helaan tababaro inay helaan maxay ahayd ka warhayn waxyaabaha soo dhan wasiirku inala fadhiya dhowrkii sano ugu dambeeyay waxa la sameeyay 16 siyaasadood oo ku wajahan shaqaalaha weynaha qaranka oo ka imanayay marka reformkaas dib u habeynta shaqaalaha ee la waday oo wasiirku garwadeen ugu ahaa reformkaasi marka waxa ka soo dhaxbaxay in runtii qolooyinka xaq dama fadhiya malaasmo reformka waxa ka soo dhaxbaxay marka in shaqaale weynaha runtii tayadooda iyo ka warhayntooda iyo kor u qaadkooda runtii la dhiirigeliyo oo xukuumaddu ay tacab iyo waqti iyo maalba ay geliso marka hawshan aan caawa fadhino waxay ka mid tahay oo wasaaradaha inala jooga wasaaradda caafimaadka iyo waxbarashadu in 5 qof runtii ay yihiin 5 qof oo mudan in la xuso mudan runtii la dhiirigeliyo annaguna hay'ad shaqaalahaan iyo qaran ahaan iyo xukuumad ahaan baan garab taaganahay hay'adda shaqaaluhu roolkii ay ku lahayd marka inay dhiirigeliso oo ay u fududeyso xulitaanka dadka la xulayo maadaama yihiin dad u shaqeeya xukuumadda inaan anagu markaa ku yeelano runtii dadaal fara badan oo dhiirigelina laakiin goobihii lagu xulayay ee lagu dhiirigelinay ee lagu codeynay ama lagu kala saarayay runtii waxay ahaayeen goobo naga madax bannaan oo runtii ay fadhiyaan dad fara badan oo sharaf iyo karaamo leh oo ka mid ah dadkii markaa gudida ahaa ee kala saaray inay caawina la joogaan oo runtii iyaguna ay nala wadaagi doonaan in inputka ay geliyaan runtii ama dhiirigelinta ay geliyaan ay ka muuqatay markaa dadaalkaas waxaan jeclahay inaad daawateen 5 qof ee caawa la xusayo oo sool iyo sanaag togdheer iyo muradjeex iyo awdal ka tirsan sababihii lagu xushay video clipka haddaad daawataan ama muuqbaahiyaha laga duubay runtii aad baad u qiiroonaysaa
anagu hay shaqaalaha waan jeclayn in numberku intaa ka bato la dhiiri gelinaya laakiin waxaan aad uga mahadnaqaynaa runtii isir hawlwadeenadeeda iyo cidii kale la shaqeynaysa ay kaashanayeen accountability lab inay runtii dadaalkaas sameeyeen annaguna waanu garab taagnay runtii intaas oo dhan oo waa la shaqeynaynay wax kasto ay nooga baahdeenna without shardi ayaanu ku xidhinay ku lahayn wax kasto nooga baahtaan free ban iyo waqti bayna idin la gelino runtii mar haddii shaqaalihi la abaal marinayo inaan idin la qabanno waxaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad aan ku faraxsanahay annagoo sanadkan qorsheynayna oo reformkaasi ay ka dhalatay in xukuumaddu maadaama wasaarad kasta iyo hay'ad kastaba ay shaqaalaheedii gaar u abaal marinaysay oo internally ay ahayd intii guud ee qaranka aanu qabanayno sanadkan insha Allah taasi oo runtii iyaduna ka dhalan doonta in shaqaalooyinaha qaranka ee lixda gobolba ku fidsan in heer madaxweyne oo heer qarana lagu abaal marin doono oo runtii lagu dhiiri gelin doono lagana warhayn doono cid kasta oo shaqaalaha qaranka tacab gelinaysa ka warhaynaysa reformkaas socday wasiirku garwadeenka ka yahay inuu ku darsanayso runtii waan soo dhaweynaynaa waana la dhacsannahay albaabkayguna uu furan yahay waana sababta runtii sababtan caawilada baaldegina shaqaalahaas waad arki doontaan oo waad qiri doontaan marka daawataan macallin Fayse iyo maamul Xuseen iyo Dr. Gudoon iyo Dr. Saciid iyo maamul Xasan runtii qiimaha ay qarankan ku leeyihiin intan iyo in ka badan way mudan yihiin intan iyo in ka badan way mudan yihiin aan ku celiyo hadalkaas waana runtii waxay sameeyeen dadaal mudan in runtii la dhiiri geliyo oo la xuso waxaan rajaynaynaa oo runtii aan ballan qaadaynaa in shantooda sawir hay'adda shaqaalaha howlkooda ay ku heli doonaan goobo fara badan runtii aan ku xusi doonaa anaguna maadaama inta ugu badan aan u qaban karnaa ay tahay waad mahadsantihiin inaan ku nidhaahno waad mudantihiin inaan ku nidhaahno waa la idinka warhayaa inaan u sheegno inaan waxyaabahaas oo dhan xusno mar saddexaad runtii marti sharafta kale ka soo qayb gashay xafladda waan u mahadnaqayaa labada wasaaradood ee ay ka mid yihiin wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadkuna waxay ku jiraan halbowlaha iyo lafdhabarta runtii qaranka oo aynaan hilmaami karin yacni shaqaalaha ka shaqeeya macallimiinta iyo dhakhaatiirta iyo nurse runtii hawsha ay qaranka u hayaan waana ta keentay in dadka faraha badan marka laga soo dhaxuso cid kastoo xafladda soo abaabushay soo qaban qaabisay waan u mahadnaqayaa idinkana waan idin mahadnaqayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu